iyadoo maalinimadii shalay ahayd markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo taageerayaasha xisbiga meel kastoo ay ka joogaan gobolada dalka iyo deegaanada Soomaaliland ugu baaqay inay isugu soo baxaan mudaharaad salmi ah ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka Waddani ee gobolka Togdheer ayaa saaka isugu soo baxay afaafka hore ee xisbiga mucaaradka Waddani ee magaalada Burco shacabkan ayaa aad uga caraysnaa xadhiga xukuumaddu u geysatay مسؤولين سلسلة حسبك معارض كاي وضني وجهرنتي وحى هالكاسي كهذا يقدميها حسبك معارض كاي وضني قبل كتقدر محمود حسن سليمان طب اللي بأنا كدرسان قولها ديجان كدق مضبر يا صدق كلا قار كم إذا تاجرياش حسبك معارض كاي وضني قبل كتقدر يجون حكومة الصومال لان كويدي إن عبرون كهيصا معارض كصومالي لان يجوا عرمها السيارة مكلا كهذا يا وحى كم إذا هذا لدودي waxaanu ka cambaaraynaa anigoo ku hadlaya afkayga afka maamulka xisbiga iyo afka taageerayaasha xisbigaba inay xaaraan tahay in la iska xilxilo qof aan maxkamad waaran looga soo goynin oo xisbi qaran hogaaminaya waanaynu cambaaraynaa dhammaan mas'uuliyiinta madaxweyne wada tashiga ku soo noqo waxaanu leenahay isu tanaasulka ku soo noqo waxaanu leenahay cadaaladda ku soo noqo waxaanu leenahay horumarka ku soo noqo waxaanu leenahay wixii Soomaaliland ku soo caanamaashay madaxweyne ku soo noqo baynu leenahay waxaanu sheegaynaa inaanay jirin colaad gaar ah oo loo qabo shakhsiyadeed mid qabiil iyo mid kala toona waxaana loo aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha qaranka haddii qoladayada mucaaradku markaanu hadlayno annagoo cadhaysan magaca madaxweynahaanu ilowno ha u qaadanin madaxweynenimadii lagaa qaaday oo ha xanaaqin madaxweyne in adeerkii cabdirashiid reeraa cabdirashiid maxamed cali injineerka waxaan leenahay nacayb reernimo lagugu diidan yahay ma jiro nacayb shakhsiyadoodoo lagugu diidan yahay ma jiro dhexdhexaadnimadaadii uunbaa la saluugay wasiiradii iyo dawladdii iyo madaxweynihii waxay ku mashquuleen xusbiyada mucaaradka inay u jawaabaan ayay ku mashquuleen loomana baahnayn inay gudaheena ku mashquulaan waxa loo baahnaayo loo doortay inay debadda dhaqaale iyo shaqaale iyo ictiraaf iyo hawlgal iyo xidhiidh caalamka ay noo sameeyaan baa loo doortay looma dooran inay ku mashquulaan wasiir waliba wasaaraddiisu waruma hayo madaxtooyaduu tagaa waxaa la odhanayaa hebel baa hadlay wasiir hebelna waa reerkiina u jawaab musabiixi iyo dawladda kulmiye waxaynu u sheegaynaa halka ay ka miisaysa ee ay ka bilaabeen ee ay ka wadaan marka waxaynu dalka u sheegaynaa xisbiga Waddani inuu isagu dalka badbaadinayo inuu halkii maxaafidku ku jiri jiray isagu ku jiro madaxweynaha ka maxaafidka inaada madaxweynaha laakiin ka xisbiga aatiri xaruntiisii iyo xafiiskiisii iyo ku shirin may madaxtooyada lagugu soo galaa doonaysay soo dhaqee u banaa Cabdiraxmaan dalka madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa hadduu xafiiska xusbi maalinta dhagax ku shubo inaanu 5 kun oo isku raga madaxtooyada ku shubi doonaan lala haddii xarunteena guud lagu shubo dhagax dambe soo madaxtooyada kuma shubna dhagaxina la waxa weeyaan waanu cambaaraynaa wixii shalay Hargeysa ka dhacay aad iyo aad baanu cambaaraynaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Camar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco.